wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda Galmudug ayaa magaalada Dhuusamareeb ku qabatay kulanka dejinta qorshaha xasilinta dowlad goboleedka Galmudug. Kulankan waxaa ka qayb galay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha ku lugta leh arrimaha xasilinta, xubno ka socday madaxtooyada Galmudug, sarkaal sare oo ka socday wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha ka shaqeeya arrimaha xasilinta Galmudug. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda Galmudug oo kulankan ka hadlay ayaa tilmaamay muhiimadda Galmudug u leedahay in la dejiyo lana mideeyo qorshayaasha wax looga qabanayo magaalooyinka laga xoreeyay kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab, isagoo carabka ku adkeeyay agaasimuhu sida ay ugu diyaarsan yihiin in hanaanka dowladnimada ay ka hirgeliyaan meelaha cadowga laga xoreynayo. In la dejiyo qorshaha barnaamijyada xasilinta sida la socodsiin Galmudug waxa ka socda barihii la soo dhaafay barnaamij dib u xoreyn ah oo deegaanadii Galmudug cadowga haysteen dib looga xoreynayo wadanka arintaas runtii oo Galmudug si aad uga socotay ahna runtii kamid ah meelaha loogu hanka weyn yahay in laga saaro argagixisada oo runtii dib ay u helaan xorriyadooda dadkaasi ayaa runtii waxaan bishii la soo dhaafay qabanay halkan ku qabanay kulankii xiriirinta barnaamijyada xasilinta oo runtii indhaha soo jeediyay Galmudug si ay ugu diyaarsan tahay barnaamijkan intaas ka bacdi barnaamijkan waxaan diiradda ku saari doonaa degmooyinka iyo magaalooyinka la xoreynayo iyo kuwii la xoreeyayba qorshayaasha Galmudug uga degsan barnaamijka xasilintu waxa loogu talagalay markii deegaanka ama degmada la qabto waxa koobaad ee dadku u baahan yihiin waxa waaye in laga sameeyo dadkaan ay helaan dawladnimadii lagu beero runtii xarumihii dawladda meesha laga helo adeegyada dawladda uga baahan meesha laga helo xasilinta markaas ka bacdi ka bixi doontaa runtii qaybihii horumarinta loo gudbi doona barnaamijkan waxa runtii lead garay wasaaradda arrimaha gudaha laakiin waxa lama huraan u ah wasaaradaha lafdhabarka u ah Galmudug oo ay kamid yihiin wasaaradda amniga, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda biyaha, wasaaradda cadaaladda, wasaaradda waxbarashada madaxtooyada Galmudug oo runtii ayadoo lead garay barnaamijkan iyo wasaaradda gargaarka dhamaanteen runtii wasaaradaha hadda waa joogan waxa la rabaa wasaarad kasta waxyaabaha ugu horeeya ee meesha ay ka sameyn karto in waxa waaye la ogaado ka bacdina qorshe midaysan annagoo leh cadowgiina runtii meeshii marka laga xoreeyay annagoo isku midaysan oo sidii dawladnimadii ka turjumayna inaan deegaankii tagno baahiyaha ka jira runtii markiiba wax laga qabsado marka waxa la rabaa in la sii diyaariyo wixii dadkii caawin lahaa oo support gareyn lahaa runtii waa diyaarsan yihiin annagana ka rabaa inaan isku xirno dadkii meesha runtii xoreynayay oo ciidankeeni iyo wasaaradihii oo la rabo markiiba inay ka fuliyaan barnaamijyada xasilinta marka laba maalin isla joogno barnaamijkeena wuxuu diiradda saari doonaa qorshahaas. Agaasimayaasha guud ee sidoo kale kulankan ka hadlay ayaa dhankooda soo dhaweeyay arrinkan iyagoo soo bandhigay qorshayaasha ay wasaaradooda ugu tala galeen dhammaan wasaaradaha iyo waxay u diyaarsan yihiin inay fuliyaan qorshaha ka soo baxa kulankan iyo kulamada ku xigi doona hadii la yiraahdo si loo gaaro dadka dhibaataysan ku nool meelaha duruufaha ka jiraan gaar ahaan meelaha la xoreeyay iyo meelaha dadka dib loo xoreyn doono waxa ku nool bulsho xilli dheer aan loo adeegin xilli dheer aan adeeg dawliyo gaarin iyo mid hay'adeed midna dawladnimada in la barana ay u baahan tahay waqti ayaga laftooda adeeg in loo bilaabo oo la tuso dawladdu inay muxuu ahaayay la imaanayso waxyaalo qurux badan inay u adeegayso inay naftooda badbaadinayso waxa lagu tusi karaa adeeg midaysan oo qorsheysan in loo dejiyo marka annaga wixii nooga aadan wasaaradda amni ahaan waa wax ugu muhiimsan in meesha marka hore ay xasilin hesho hubin amni ay hesho adeegyadii booliiska iyo agenciyada kale security ka shaqeeya ayagana ay shaqadooda ka qaban lahaayeen dadkaas siday nabadgelyo u heli lahaayeen wasaaradaha kale iyo qaybaha kale ee bulshadana ayaguna ay doorka uga aadan u qaadan lahaayeen marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in outcome fiican oo dadkaas waxna u gala waxna tara annagana de waajibkana saarnaa iyo adeegyada bulshada inaan wax badan ku soo kordhin doono hadii la yiraahdo. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda Galmudug Mudane Axmed Cusmaan Aadan Qooje oo kulankan si rasmi ah u daafuray waxa uu sheegay in ka wasaarad ahaan ay ka shaqeyn doonaan hirgelinta arrimaha xasilinta Galmudug ayna qorshe midaysan ka yeelan doonaan.
maadaama ay jiraan dhibaatooyin badan ee ka jira deegaanada gobol oo ay u geysteen nimankii sharwadayaasha nimankaas meelaha ay joogaan dadku ilaa 15 sano muddo gaaraysa ayay dadku wax ku shubayeen waxaa loo baahan yahay marka wixii lagu shubay fikir qaldan ahaa dadkaas in laga shubo laguna shubo fikir caafimaad qaba oo maaragtay maslaxadooda iyo dantooda ka hadlaya oo wax u taraya waa dad maanta iskoolka loo sheegay inuu lagu baranayo diin gaalo waxa ciidanka iyo dawladnimaduna ay tahay wax gaalo u adeega waa dad dhibaato badan lala kulmiyay cunugii ku dhashay markay meelaha qabsadeen ayaa qaan gaaray midka 3 jirka iyo midka 15 jirka isku fikir bay qabaan dadkaasi marka waa dadka loo baahan yahay in fikirkaas fikir ka bedelan lagu shubo lagana bedelo waxa ku jira waxa weeye dadka wax u sheegaya ama wax u galaa waa dadka madaxda u ah iyo dawladda marka kulli waa la faahfaahin doonaa arrimahaas shirkuna waa noo furan yahay Cabdi Fataax Yuusuf Baareed warbaahinta Shabeelle Dhuusamareeb